السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacayga waxaa waaye Dr. Shaafici. Cawada waxaa ka cusubnahay masaajid Masjid Al-Khayr, laakiin waa ka gaari waaye aadaan aga xumahay. Marka waxaa rabaa inaan videogan sameeyo dadka u sheego faa'iidada ku jirto talaalka oo COVID-19. Hadda su-aasha ugu badan waxaa waaye boosterka muxuu yahay iyo boosterka maxaa loo qaadanayaa. Boosterka ugu hore waxaa waaye talaal oo difaacaga oo kor u qaadaya. Marka boost waxa la dhahayo waxaa wax kor u qaadaya, wax ku saacidinaya waaye, difaacaga ku saacidinaya. Sawirkan wuxuuna tusaa marka dadka oo horay talaalka soo qaateen bishii January amba February, marka la gaaro 5 bil amba 6 bil marka la gaaro talaalkii waxtarkiisa waa sii yaraana. Jirkaaga difaaciisa oo talaalka u lahaay hoos u soo dhaca. Marka talaal kasta la fiiriyo inta waxaa waaye dad oo cilmi baaris sameeyeen. Marka talaal kasta way fiiriyeen Pfizer, Moderna. Pfizer hadaa fiirino calaamadan jaalada kow hore qofka marka la talaalo 100% wuxuu ka hortagaa inuu infection oo ku dhaco. bil markay kasoo wareegato 90% u soo dhacay. bishii labaad, bishii saddexaad xoogaa hoos u soo dhacay. bishii afaraad weli 82%, 83% waaye. July marka la gaaray 5 bil kasoo wareegatay 50% u ahay. Marka saas waaye waxaa dadku loola talinayo in booster inay qaataan ama talaal saddexaad marka ay kasoo wareegato 6 bilood. Marka taasna maxaa keenay? Viruska isbedelaya. Marka viruska aad difaaca u lahayd wuu isbedelay, virus kala soo baxay. Isla viruski coronavirus waaye, laakiin xoogaa yar wuu ka duwan yahay viruska koowaad adiga laga talaalay. Marka bishii May oo sanadkan Delta variant amba coronavirus oo Delta kan la dhahayo 7% oo ahay wixii virus oo community ku jiro. Marka la gaaray July sanadkan dhexdiisa Delta waxaa noqday 94%. marka talaalkii adiga qaadatay coronaviruska oo January amba February amba March iyo April, viruska markaas community ku jiray aad laga talaalay. June iyo July marka la gaaro viruski waa isbedelay. Marka viruska adiga aad difaac u lahayd virus ka duwan community ku jiro, marka difaacagana hoos u soo dhaca. Videogan wuxuu idin tusaa viruska sidoo isku bedeli karo, sida camal Delta variant camal sidoo ku soo baxay kale. Markuu isbedelayo copy markuu iska sameynayo marmar qalad oo sameynaa. Viruskan hadda COVID-19 oo sababo waxaa waaye RNA virus la dhahaa. RNA gan waxaa waaye CGU waaye. Marka viruskan qalad oo sameeyay meeshii oo C inta ka dhigi lahaay, meeshii U inta oo ka dhigi lahaay GGA oo ka dhigay. Marka isla viruski waaye, RNA-ga waxaa badanaa isbedelin, laakiin qaladkan yar oo sameeyay sababaysa in oo viruska xoogaa nooc kale ku soo baxo. Soo isku bedelayna markii dambe viruskaas cusub community ku badanayo. Marka dadkan difaac ma u laho viruska cusub. Sida hadda Delta variant camal markuu soo baxay dadkii oo kow hore virus ku dhacay Delta markay la kulmeen Deltana way ku jiradeen. Dadka talaalka xitaa qaatay Delta markuu soo baxay weli infection ku dhacay. Laakiin weli dadka talaalka qaatay difaac way u leeyihiin. Xataa hadoo 40% hadoo yahay oo 100% ahaan weli kastoo difaac way u leeyihiin. Laakiin faa'iidada badan oo talaalka ka helna waxaa waaye
dadka oo talaalka qaateen iyo dadka talaalka qaadanin marka la isku fiiriyo, dadka oo talaalka qaateen aad iyo aad aga yaraayeen inay isbitaalka la jiifiyo amba inay aada ugu jiradaan. sawirkan waxaa noo caddeynaa faa'iidada ku jirto talaalka COVID-19. dadka talaalka qaateen waxaa waaye calaamadan oo oranjiga waaye. dadka oo talaalka qaadanin calaamada bluega waaye. sanadka bilowgiisa dad badan fursad ma u helin inay talaalka qaataan. dadka oo talaalka qaadanin iyo dadka talaalka qaateen kaysaskooda iyo dadka isbitaalka u baahnaayeen aada iskugu dhawaayeen. 100,000 hal qof camal isbitaalka la jiifinaya dadka talaalka qaateen. 100,000 15 qof isbitaalka la jiifinaya inta talaalka aana qaadanin. markaas xitaa waxaa arkaysiin inuu talaalka ka faa'iideen dadka oo qaateen. bisha July dhammaadkeeda 100,000 qof 431 oo talaal qaadanin isbitaalka la jiifinaya. dadka talaalka qaateen waxaa waaye 26 qof oo talaal qaateen oo COVID-19 ku dhacay isbitaalka la jiifinaya. dadka oo 18 sano jiro ilaa 49 kuwa talaalka oo qaadanin 23 jibaar ay ka badan yihiin halistooda in isbitaalka la jiifiyo. dadka oo 50 sano ilaa 64 sano jirona inta oo talaalka qaadanin 22 jibaar ee ka badnaayeen marka la isku fiiriyo. dadka oo 65 sano iyo ka sareeyana 13 jibaar dadka oo talaalka oo qaadanin ka badnaayeen dadka talaalka oo qaatay. sawirkan waxaa idin tusaa haddii dadka da-dooda loo kala dhigo 12 sano ilaa 17, 18 ilaa 49, 50 ilaa 64 iyo 65 iyo wixii ka sareeyo. group kasta waxaa waaye dadka talaalka oona qaadanin aad kaysaskooda badan yahay dadka talaalka oo qaatay. marka yaa loo ogol yahay in oo boosterka inuu qaato laba waxay ku xiran tahay. mid waxaa waaye qofka da-diisa, midda labaad waxaa waaye qofka haddoo waxa qabo jirooyin aba cuduro oo halis aga dhigaya inuu aada ugu jirado viruska, iyo waqtiga oo kasoo wareegatay marka qofka talaalka oo qaatay. dadki oo qaateen Pfizer ama Moderna hadday 6 bil kasoo wareegatay. dadka oo qaateen talaalka Johnson hadday 2 bil kasoo wareegato boosterka inuu qaato waaye. Johnson wuxuu ahaay talaalka oo difaaciisa ugu yar yahay, marka faa'iido badana ugu jirto dadkaas in boosterka inay qaataan. qofkii oo su-aal qabane waxaa dhakhtarkiisa oo warsan karaa. marka videoga intaasaa kusoo gabagabeynaa. fadlan su-aal haddaa qabtid commentiga hoos kusoo qor. insha allah wax cusub markuu soo saa'ido amba waqti markay kasoo wareegato anaa video kala sameynaya insha allah. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.